شديدة وعنيه قاب كذا لو دقي اتما ايدن اركيو سيدا في ارح بيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معنا وناكسن مركل فيديو عسو جنرال قاعد نقول سعتان وحواب فامل أنا ومسين سو هذا معنا وناكسن هبي وناكسن صبح وناكسن دور وناكسن عصر وناكسن كل شيء وناكسن أصحابتي وعسب سو هذا أصحابتي ريد جوك سوكل سو هذا دماتي بسوي هذا دمانتي وأدين وذجع لهاي إن شاء الله أنت نجح حنوسن الله نوع عافية ضد بدن الصومالي ضد حنوسن أجره إله نوضع عافية أنت نجح حنوسن يعني إن شاء الله جنة كذاك عصبتها هاي سودوا وقعم فرنك سودوا منك واي جنة سبسكرايب نو صار نو لايك جري نو شير جري بليز دو سبسكرايب كوساري لايك تلا نقول إن شاء الله دمانتي وما سنتين حنو بلا من قصدي قصدان waa qisadii ilmihii yani cunugii yaraa ee si silac iyo saxariirta loo dilo soo marka xalay yani fiidiyoga ka horeeyay waxa idin ku dhahay waxa idin yani baartitu wuxuu noqonaa gabagabada laakiin sorry waan ka xumahay because ma usan dhicin yani waqtigan ay idin soo sheegay qisada idin duubayo ma aysan dhicin xukunkii maxkamadii marka saas daraadeed xukunka maxkamadda waxaa lagu balansan yahay fadhi kale lagu balansan fadhi kale marka waqtiga aan fiidiyo idin duubayo ma ahan waxaa lagu balansan yahay adiga tomorrow waqtiga hadda aniga oo saaka waqtiga idin duubayo ma ahan tomorrow lagu balansan yahay marka saas daraadeed marka insha Allah baarti 3 aan kasoo sameeyna baarti 3ga xukunka maxkamadda waxaas dhan aan idinku sheegi doonaa wax uu noqdo hadda laakiin cadeymaha la helo oo ilmihi yaraa dilkiisa loo helo dhan idin wadaaga marka insha Allah noo bilaabo qisada ilmihi yaraa oo dhintay qisada noo mareysay ilmihi yaraa markuu dhintay oo hospitaalki la geeyay oo booliskii hooyadii aabiye qabteen hooyadii iyo yani ninka qaba hooyadii iyo ninka qaba markii la qabtay waxyaabihii ugu horeeyay oo la weydiiyey oo maxay la weydiiyey waxay ahayd maxay tahay ilmahan yar dhaawaca ka muuqdo jirkiisa hooyadii oo hadash waxay tiri garanaysaa ilmahan yar wuxuu ka dhacay baaskiil maalin kasta baaskiil koraanay ka dhacaan mana dhacdo saas yani ilmahan yar wuxuu ka dhacay baaskiil okay waxa la haduu baaskiil ka dhacay sidee ku dhacday ilmahan waxaanu daba korkiis ku yaalaan in waxaanu mindiya korkiis ku yaalaan in waxyaabo far badan oo yani dameerka bini'aadanimada dila inay jirkiis ku yaalaan maxay tahay lahan ma garanay asiga la weydiiyay tir asiga la weydiiyay waxa la yiri soo dhaw caday warkan xaqiiqdiisa wuxuu yiri no ilmaha baaskiil buu ka dhacay laakiin wax kale ma garanayno sasraadad marka baaritaankii la sii waday waxa meesha la keenay oo ayagana la soo xiray qoladii u doodaysay caruurta iyo waxa la soo xiray booliski qoladu waxaa la soo xiray u doodaysay caruurta iyo waxa la soo xiray booliski oo shaqada ku lahaa yani waxa loo soo xiray waxay tahay waxa dhacday horta in gabar kamid yani dadka oo xaafadda degan hadda waxa dhacday marmarka qaar dariskaaga markay wax qabaan in lagu soo yiraahdo oo lagu yiraahdo heblaayo ama hebel waqti hebel waxaan qabnaa soo marka tafadal ama soo dhawaaw nooimo in lagu yiraahdo soo marka gabar ay ku marti qaadeen xafladii gabadhaas ayaa waxay ka shiftay yani sir far badan oo aad u far badan oo qasabtay in la xiro booliska in la xiro يعني kooxda hay'ad u doogdo oo xuquuqda oo caruurta nimankii madaxda ka ahaa gabadhaas waxay ahaydeen wariyo ka shaqeysa mid kamid ah warbaahinta kasoo baxday dalka Mareykanka gabadhii waxay ka qayb galeysay xafladii ka qayb galeysay gurigii baarbaartay way raadisay ilmihi yara way weysay hadii aad xasuustiin sawirada ay idin soo saaray qaybta hore oo fiidiyooga kore idin soo saaray xasuustiin waxaa ku jira kabar yani ama armaajo oo ilmaha yar ku dhex jira armaajo qofka soo sawirtay oo ilmaha uu ku jiro soo sawirtay waxay tahay naagti oo gabadhi yani wariyaha ahayd laakiin reerkan ay soo gadin inay wariyo tahay soo sawirtay marka armaajada markii oo ilmaha yar ku dhex jiro sawirkaas ma idin soo deynaa because
aad xanuun badan taas midin soo deena laakiin gabadha saxaaba gabadha soo duubtay markuu armaajada ku jiray waxyaabo far badan guriga soo duubtay hadda dunida horumarta waxaa jira kaamira yar oo guluus ah waxaa jira kaamira qalin ah soo marka ayada kaamira qalin ay wadatay wax ku qorqoraysay waxay u tagtay qoladii booliska u tagtay waxay tiri ilmahaas yar oo maxay naagtaas dhashay wax ma ka ogtay xaaladiisa waxba nagama gelin ilmahaas waa ilmo oo fataal ah ama yacni ilmo zeeg ah soo marka waxba nagama gelin ay dhaheen way baxday waxay u tagtay qolada caruurtan iyo qolada booliska hal af ay ku wada hadleen soo marka gabadhii way yaabtay wax kastay sameysay way sameyn weysay marka gabadhaas cadeymaheeda waxaa kamid in maxkamadda la keenay waxaa kaloo maxkamadda yimid wiilka aabihiis oo ka yimid gobolka fog wiilka aabihiis hadallada uu leh wallaahi waa hadallo qiiro leh oo qalbiga ku xanuujinayo wuxuu yiri haddii jaanis la isii lahayo yiri oo mar kale yacni aada nolosha kusoo laaban lahayd waxaan kaaga gudi lahaa qof kastoo dhib kuu geystay waxaan ka jari lahaa xubin kasta oo jirkaada kamid ahay kaa jareen ma aqaano qof dembi kugu sameeyey laakiin waan dareemay in dembi lagaa galay lagu diray lagu dhibaateeyey wiilka aabihiis hadaladiisa ayadana waxay leedahay murugay leedahay ilmahaas yar aabihiis hadalada uu ku hadla ayadana murugay leedahay waxaa kaloo meesha maxkamadda imaatay ilmihi yaraa macalimadiisii macalimada ayadana waxyaabo fara badan oo waxaa jira ay kashiftay oo ay sheegtay sida waxay tiri ilmaha yar maalin waxaa dhacday in imtixaan uu jiro uu iskuulka kasoo dahay deedna markuu iskuulka kasoo dahay waxaa dhacday ilmihi yaraa uu yimid markuu yimid aan madaxiisa ka arkay tiri dhaawac weyn aan ku iri dhaawac ayaan ku geystay waxa kaliya ugu yiri waxay tahay waan dhacay baaskil baan ka dhacay markii imtixaanka galeen oo carruur ay baxeen baa waxaan ku iri adiga ma bixisid galaaska iyo fadhi ilmihii markay baxeen baa waxaan ku iri soo dhawow waxaan u baahanahay in xaqiiqda dhabta in ay sheegto because baaskil kuma aadan dhicin runta ii sheeg wuxuu ugu yiri ii ballan qaad inaadan hooyada iyo ninka qab inaadan ii sheegeen waan xabay ku tiri because waxay tiri 22 sano jira tiri weligay ma arkin tiri xitaa qof weyn oo ballanqaadaas la gala maanan arkin isla markuu wuxuu bilaabay inuu u sheego u yiraahdo qaabka loo galo gabadhi markuu waxa ka sheekeynayso oo macalimad ahayd waxay tiri ilmahaas yar wuxuu ii sheegay in hooyadii ay disho in hooyadii ninka qaba uu dilo in sigaarka ay ku damiyaan in ay midi soo qaataan yacni ay dabka geliyaan markay guduud noqoto ama maxaytood ay noqoto dabka u ekaado ee soo qabtaan korkiisa ku calaameeyaan madaxiisa inay feer ku dhiftaan soo marka wuxuu yiri ilaa goorman ku jira huu yiri ilmaha yar wallaahi fiidiyowga markii aad fiirsatid yacni maxkamadda life waaye markii aad fiirsatid caloosha dhan way ku bureysaa because marmarkii qaar waxaa is leedahay dadka qaar ma fiicnin inay waalid noqdaan waayo boqolaal waxaa jirta maanta hooyo iyo aabbo wax dhahla dadka qaarna ayagoo haysta ay dayacayaan ay dhibaateynayaan okay waanada qaybta gadaalaan ka dhiganina gabadhii oo macalimada ahayd way sii hadli weysa maxkamadii waxaa lasoo istaajiyey gabar kale oo gabadha macalimada ee la sheergareysay mar oo ayadan ka shaqeysa qeybta xafiiska ciyaalka gabadha waxay tiri waxaa dhacday inaan tagnay gurigii oo baarnay oo ilmihii yaraa waxba uusan sheegi karin irida markaan garaacnay ilaa 15 daqiiqa aan irida taagnayna laga furin ilmihii yaraan aan dareemin inuu wejigiisa murugsantaa laakiin us waxba noo sheegno yiri normal banooni baan dheelaye wax ma qabo yacni banooniga waa kubadda okay aan dheelaye wax ma qabo wax saas camal inuu dhahay tiri ilmihii ma aanan sii dareemin tiri because ilmihii yaroo qosla u dheelaya waxba dhibaato maanan sii arkin markaan bixin hooyadiis waxay ii keentay tiri warqad yacni ay soo qorta iyada yacni ayadaa qorta warqadda laakiin dadku waxay ugu sheegtay in ilmahaas yar qore haddii oo gurigan laiga wadi waayo oo waxbarashadan laiga dhaafi waayo waa isdilaa wax sasaa warqadda ku qorneed qolada maamulkii waxaase arkeen ilmihi yara waa lagu qayqayl isla markiiba ilmaha waatan 2 wiil kadib baa u dhintay
يعني gabadha oo ka socota markii yani gabadha ka socotay waaxda caruurta waxay leedahay markii aan ilmahaas yar aan la kulmo oo aan canaantay oo aan ku qayliyo aan ku wax baro laba week kadib waxaa la iisoo sheegay ilmihi yar inuu dhintay sidee marka ku dhici kartaa in hooyo ilmaheeda sida u gasho waxaa kaloo maxkamadda la soo istaajiyay gabadhi naagti yani naagti hooyo ma dheheen okay naagti shaydaanta ahayd hooyadeed baa la soo istaajiyay hooyadeed way oysay waxay tiri gabadhan waxay tiri ilmaha wax kaliya u soo wadato waxay tahay dowladda Mareykanka inay qortay lacag yar ay ku caawinayso in dadka ilmaha haysto saas daraadeed marka ay rabtay lacagtaas kaliya ilmaha marka hore waxaa haysteen awowgiis wax kale ugu soo wato xitaa markay tiri dowladda waxaan bixinaynaa in lacag yar oo dadka ilmaha haysta la siinayo saas daraadeed marka in lacagtaas bis u soo wadato ma ogi jacayl hooyanimo iyo ixtiraam waalidnimo umaysan soo wadan ilmahaas saas ayadiina tiri ayadii way sii hadlaysay wallahi ma jiro qof maxkamadda soo istaago oo si nadiif u hadlay ma jiro waxaan kaloo maxkamadda soo istaagay dhaqaatiirtii waxay yiraahdeen weligeed ma aanan arkin bay yiraahdeen ilmo yar oo qaabka loola dhaqmay ilmaha waxay yiraahdeen dheefshiidkiisa wuuba qalalay wuuba xirmayba because waa ilmaha waxba la sii jiran waxay kaloo yiraahdeen qanjir waxaa jira loogu talagalay inuu yani bato oo marka qofku wax cuno iyo waxaas iyo oo wax cunayaan dhihin yani ilmahaba markay cabsi dareemaan iyo waxaas iyo uu dhacaa dhacaamada u soo deynayo marka ilmahaas waxaa lagu yiri qanjirka sida qof aanan lahayn camal uu noqday wax dhacaana ma uusan soo deynin because cabsidiya ka dambadatay ilmaha ma ahan xitaa wallahi in la garaaco way dhacdaa in marmarka qaar aad 2 xaba ama 3 xaba aad guluftid laakiin heer ilmahaaga aad nabaro muuqda u geysatid ma fiicna ani markaan ilmo yani qalad galaan oo aan rabo inaan ciqaabo waan yani xitaa haddii aan wax yar oo dharbaaxa yar ama wax yar aan ku dhufto xitaa waan ka xanuunsadaa because ilmaha xanuunka oo dareema adig ma dareemaysid ilmaha simbirtan kale canaanta faraha badan qaylada faraha badan oo ma fiicno waxay ku sii noqonayaan laag dhagax saas daraadeed marka qisada ma sii wadaayo intaan ku joojina insha Allah part 3 noo susmeena part 3 waxay noqonaysaa insha Allah qaybta gabagabada raali noqday part 2 waa inay gabagabada ka dhigo laakiin maxkamadii wali laguma dhawaaqin xukunkii marka maanta kaliya waxa dhageysiga oo marqaatiyaasha iyo dadka oo meesha ka hadleen iyo waxyaabihii arkeen tan kale waxyaabaha la arko waxaa kamid ah in ninka inaagta ay message isku diri jireen dhigi jirta oo dhaankii xumaa aan garaacaya yani qolka fadhigaas uu joogo ayadana qolka oo cunug ay joogto ninka message dhaanka xumaa garaacaya asiga message soo diray oo leeyahay dhaanka xun garaac nafta ka qaad like that horta waxaa muhiimaba oo muhiimka koowaad ah nin markii aad guursanaysid oo ilmo awdad oo guursanaysid waa inaad shuruud la gashid oo dhahdo ilmahayga haddii aad saa u fiirisid iridaad ka degaysaa iska badaa inuu ilmahayga dilee ya wallaahi wiilalow way maqlaysiin mahana isku badnaada ilmaha idinka nabad galaan insha Allah qisada baarti 3 soo sameeyna Abdullaahi raad qisadan way dheer tahay iska raali noqda waana dareemi kartaa markii oo xanuunka aad dhageysatid oo waxyaabaha socdo aad dhageysatid xanuunka leedahay caloosha ku noqonaysa iyo markii haddana hooyo tahay waad dareemi kartaa marka insha Allah ma santiin channel ku xabaab anigu oo museen insha Allah channel subscribe na soo like share comment saxbada la wadaagada ma santahay waxaa sameysaa hadduu subscribe ku seeran no like garey dhammaantiin waa idin wada jecelahay dhammaantiin wallah